بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبا سؤال قيمة بدن كويدية يهد سليدي بادونك كوغو جعل انتي كلما تشوغو لكن وافضال اناد كفكري لها يتقفك جعل لكن واحد راعدك جعل ولبعداسي وكو قوضيا ساعد كلاير في النقطة تدكودن هدي كاتغانا سبوا معاغا noloshaada oo dhan wax kastood u baahato isagaa kuu fuliya maalin kasta ayuu biilka reerka kaa bixiyaa wax kasta oo aad ku farxayso ayuu kuu soo dhoweeyaa wax kasta oo aad ka naxaysana waa uu kaa fogeeyaa la'aantii ma noolaan kartid iska badaa inaad noolaatee nololiba ma jirto haddaad garatay iyo haddii aadan garanba ciddaan ka sheekaynaynaa waa allah jalla jalaaluhu ilaahay isaga ayaa ku abuurtay weliba sida quruxda badan ee aad u abuuran tahay ilaahay ayaa kuu abuuray ilaahay oo arrinka inoo sheegayana wuxuu leeyahay laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim insaanka sidii ugu wanaagsaneed baan u abuurnay baa ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay ilaahay dhirta iyo dhagaxa samada iyo dhulka xayawaanka iyo xasharaadka jinka iyo insiga cadaabta iyo jannada dunida iyo aakhiraba intaba ilaahay baa abuurtay ilaahay oo arrinka inoo sheegayana waxa uu leeyahay allahu khaaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل إلهي وكو كرامي ما كراميسي إلهي يعني إلهي إنك قني وإنك لكن نفط هذا ما كراميسي إلهي وكرامدي إنو شيئين وحاوين ليهي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات إلهي إرساقد نورا أما بيلك نورا وحابحية إلهي والواحد قياستا 8 بليون أوقف cidda bixinaysa waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo waliba wax kasta oo ay baahdaan iska badaa dadkee horta jinka mid buu u tira kooban yahay makhluuqa la abuuray oo dhan ilaahay ayaa irsaaqada ka bixiya arrinkan oo ilaahay inoo sheegayana waxa uu leeyahay wamaa min daabatin fil ardi ilaa cala allaahi risquhaa daabad adduunka korkeeda socotaa ma jirto ilaa ilaahay subxaana wa tacaala baa irsaaqadeeda qoray ilaahay waa midka maalin kasta ku maqlaya hadalkaaga dheerna wuu maqlaa kaaga gaabanna wuu maqlaa kaadan weli ku hadalna waa ogyahay allah subxaana wa tacaala tusaale waxaa kugu filan gabadhii ka cabanaysay ninkeeda ee rasuulka u timi caaisha waxay tidhi maanan maqlaynin hadalkooda laakiin ilaahay 7 samaawaad korkooda ayuu ka soo qisaaday ilaa haddana waad akhrisaa qisadan ilaahay oo arrinkaa inoo sheegayana waxa uu leeyahay qad samica allaahu qowla allatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلهي واكو أركت بدن ميل آدم عندها وقبنين أما ميل إيسان عندها وقارين وحبوك أركع لكن أدو ضعيفات قلك أدهد كترتو قداشي سوحة تاغن ما أركت لكن إلهي وحو أركع الدونك أولا وحكا دعايا أيو أركع إسكبداي هبين كمدو بيها بدي مدو نويريا كل حجرين مدو علوشي سمدو إربد مدو يعني تعالى ayuu arkaa ilaahay oo inoo sheegaya waxa aan samaynayno inuu arkana waxa uu leeyahay wa aqiimu salaata wa aatu zakata wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda allah inna allaha bima ta'maluna basir sidaa daraadeed walaalkayo ama walaashay ilaahay isaga ayaa inoo yeedhaya inaan nabad ahaano ayuu inoogu yeedhaya kana nabad ahaano cadaabkiisa ilaahay oo inoo tilmaamayana waxa uu leeyahay والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم sidoo kale ilaahay wuxuu inoogu yeedhayaa jannaduna waa abaalmarin haddana ka waran ilaahay wuxuu inoogu abaalmarin lahaa ayuu haddana inoogu yeedhayaa isagoo arrinkaa inoo sheegayana wuxuu leeyahay wallahu yadcuu ila aljanna waalmaqfiratu biidnihi adduunka 2 xisbi ayaa ka jira xisbi shaydaanka ayaa madax u ah xisbiga kalena ilaahay xisbiga shaydaanku waa mid khasaaray wuxuuna ahaan doonaa naarta saciira la dhaho xisbiga ilaahayna wuxuu ahaan doonaa jannada ilaahay oo arrinkaa inoo sheegayana waxa uu leeyahay أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لسعو walaalkayo hadba ficilka aad samaynayso ama wuxuu noqonayaa mid aad ku adeecdo ilaahay ama wuxuu noqonayaa mid aad shaydaan ku adeecdo iyo naftaada ilaahay
wuu ina abuuray, ina karaameeyey, ina arsaaqay, inoo nimceeyey, wax kastoo rabnana ina siiyey. innagoo maalintii gafayna ayuu habeenkii xilliga dambe markay gaadho ina leeyahay yaan u dembi dhaafaa, yaa waxay weydiisanaya. haddaynu xilligaa kacno oo ilaahay dembidhaaf weydiisanno, inama odhanayo orod adiga kaa toobad aqbali maayo oo adigii maanta gefay iska baddaa inuu taabku yidhaahdee ilaahay isaga ayaa ku farxaya toobaddaada, sidii rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam. haddaba walaal, ilaahay isaga oo waxaas oo dhan inoo qabtay, waxa kale oo aan u baahannana ina siinaya, muxuu inooga baahan yahay ilaahay? ilaahay wuxuu inooga baahan yahay keliya wuu inoo sheegay, qur-aankiisa ayuuna inoogu sheegay, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya waxa uu rabaa waa inayna caabudno weeya. cibaado bes ayaa laynaga rabaa, shaygaa yar ee aynu wada awoodno weliba, waayo ilaahay waxaynan awoodin inama saarin. miyaysan ahayn inaynu ku dadaalno? jawaabtaadu waa muhiim. waxaadna ku reebtaa faallada, kuna odhan maayo sheergaree ama igu soo biir, laakiin taa beddelkeeda waxaan ku odhanayaa oo rasuulku inugu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxaad jeceshahay walaalkaana la jeclow. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.